dhacdadan lagu xayirayo gaadiidka iyo dadka rakaabka ah ee u kala gudba Djibouti iyo Somaliland ayaa waxay sababtay kacdoon iyo mudaharaad aad u ballaaran dadweynaha ku nool magaalada Lowyacado yar iyo weyn caruur iyo ciroole ayaa dhamaantood isa soo toobay wadooyinka magaalada waxayna ka cabanayeen cashuurta ay kordhisay wasaaradda maaliyadda isla markaana ku dhawaaqayeen dadkii iyagu halkaasi isku soo baxay ayaa waxa ka mid ahaa dollar qaate dooni meeyno anagu malihin wax maxay ay baamishra meel naga soo daga malihin dakado malihin maaliyad kala meel naga timaada dariiqaas aan ku noolahay gaariga maraya dadka la socda baabuurkaas anagu ku noolahay oo wax ka cunaa oo wax ka helaa baabuurtii baa hunguriga loo joogsaday iyada wax awlaad halka Lowyacado ku kortay waxa ay xaquudsadaan waa gaariga waa taayirka dariiqa maraya iyaan quudsana ummadda wasiirka arrimaha gudaha waxaanu leenahay dadkan muwaadiniinta ee ku nool gobolka Salel waxaad u soo dirtay inay baayac mushtariga iyo dadkan ku noolnayd barbarageyso waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan la wasiirka arrimaha gudaha amniga waxaanu ku codsanaynaa inuu si degdeg ah noo soo gaaro gobolka isku abuuray qaniga iyo saboolka qofkii qaniga ahaa daadar 20 kuna shinta isagu kariba laakiin kii gaajoonay ee dadde habeen walba 12 habeenimo ayaa saldhiga karatoon loo dhigay rasabka gobolka Salel Cabdilaahi Faarax Maydhane oo isla mar ahaanta ka soo galay dalka Djibouti ayaa isku dayay in uu joojiyo mudaharaadkaasi balse markii ay u suurtagali weyday in uu xal ka gaaro arrinkaasi siina balaadhay mudaharaadkii ayaa waxa uu barasaabku si toos ah u soo weeraray saxaafadda oo ku sugnayd goobtaasi isagoo halkaasi waxyeelo ugu geystay qaar ka mid ah saxafiyiinta halkaasi ka howlgalaysay intaasi kadib waxa uu dib ugu laabtay barasaabku dalka Djibouti iyadoo ay wali sii soconayaan buuqii iyo rabshadihii ka socday magaalada Lowyacado si kastaba ha ahaatee mudaharaadkan oo socday ilaa iyo galinkii dambe ee maanta ayaa waxa dadweynahaasi xoog ku kala kaxeeyay ciidanka booliska oo uu horkacayo taliska qaybta gobolka Salel